Bismillahir Rahmanir Rahim nabad daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda Soomaaliya iyo qodobada caalamka ugu dambeeyay. Qodobada aynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah guddiga joogtada iyo waliba anshax marinta oo war ka soo saaray dacwadii maamuska xayuubinta ee Xildhibaan Maxamed Abiib. Xildhibaan Maxamed Abiib oo maanta ku wajahna magaalada Boorama oo si weyn loogu soo dhaweeyay daawadayaal. qodobada arrimaha dibadda aynu maanta soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah dagaalamayaasha lagu magacaabo Xuutiyiinta oo maanta duqeyn ka fuliyay caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv. qodobada iyo qodobo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta. haddii aynu gudagalno barnaamijkeena maanta daawadayaal sida aynu wada ogsooneyn xeer ilaalinta ayaa waxa ay ku soo oogtay Xildhibaan Maxamed Abiib dacwad maamuska xayuubin ah. haddaba guddida joogtada ah iyo waliba anshax marinta ayaa war ka soo saaray dacwadii laga gudbiyay Xildhibaan Maxamed Abiib, taas oo xeer ilaalintu dhawaan ay soo gudbisay. haddaba guddida joogtada ah iyo waliba anshax marinta oo war ka soo saaray dacwadda laga gudbiyay taas oo xeer ilaalintu dhawaan ay u gudbisay kagana dalbanaysay in lagu sameeyo maamuska xayuubin Xildhibaan Maxamed Abiib. haddaba guddida joogtada ah ayaa warqadan loo soo gudbiyay waxaanay u dhignay sida tan daawadaya. guddida joogtada iyo anshax marinta golaha wakiilada oo tix raacaya qoraalka taariikhaysan 20 bisha 7 2024 ee ay ujeedadiisu ahayd talo bixinta sharci ee la xiriidha soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee ah maamuska xayuubinta mudane Xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf Jaamac, kaas oo gudoomiyaha golaha wakiiladu mudane Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon kaga dalbaday inay ka soo talo bixiyaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud iyo sharcinimada hanaanka gudoomiyuhu uga gudbiyay guddida joogtada ah iyo anshax marinta. haddaba waxaanu guud ahaan bulshada iyo mudanayaasha golaha wakiilada halkan kula wadaagaynaa talo bixinta la taliyayaasha sharci ee golaha wakiilada iyo nuxurkeedu uu yahay sida tan. 1. in gudoomiyaha golaha wakiilada uu la wadaagay guddida joogtada iyo anshax marinta si waafaqsan qodobka 8aad faqradiisa 1aad iyo 10aad ee xeer hoosaadka ee u dhigan sida tan. 1. wuxuu mas'uul ka yahay fulinta iyo dhowrista xeer hoosaadka 10aad wuxuu matalaa kuna hadlaa magaca golaha wakiilada. 2. in guddida joogtada iyo anshaxu ay awood u leeyihiin in ay ku darsadaan isla markaana qiimeeyaan asbaabaha soo jeedinta mudanaha xeer ilaaliyaha guud ee uu gudbiyay golaha wakiilada si ay uga soo gutaan waajibkooda ku tilmaamaan qodobka 54aad fiqradiisa 1aad iyo 3aad ee u dhigan sida tan. 1. in ay sii wadaan howlaha golaha si inta uu fasaxa ku jiro. 3. waxay awood u leeyihiin in ay darsaan qiimeynta asbaabaha keeni kara in mudanuhu uu mudanayaasha ku waayaan xubinnimadooda si waafaqsan dastuurka iyo xeer hoosaadka. haddaba daawadayaal warqadan oo ku saxiixna gudoomiyaha guddida joogtada ee anshax marinta mudane Cabdikariim Aadan Cumar Cambe. qodobka xiga aynu maanta barnaamijkeena ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa kamid ah sida aynu wada ogsooneyn muddooyinkii ugu dambeeyeen Xildhibaan Maxamed Abiib oo caan weyn ku ah xukuumadda Muuse Biixi ayaa waxa uu sheegay in uu talo kula noqon doono lana soo tashan doono dadkii soo doortay ee deegaankiisa. haddaba maanta oo uu ku sii jeeday magaalada Boorama ayaa waxa uu goob fagaaro ah uga khudbadeeyay taageerayaashiisa, innaga oo idinla wadaagi doono khudbadihiisii qayb ka mid ah daawadayaal waxaanay u dhignaayeen sida tan. waxaan ku faraxsanahay inaan anigu idinkaydi ka dhashay. waxaan ku faraxsanahay inaan xildhibaankiin yahay. waxaad tihiin dad dadka nooleeyaa tihiin laakiin ma tiidina dad dadka laaya ma tiidina. waxaad tihiin dad tihiin baaqi aan idiin soo diray waa ka jawaabteen waxaana kaga jawaabteen isku soo bax cadho leh
waxaad kaga jawaabteen isku soo bax midnimo leh waxaad kaga jawaabteen go'aan raganimaad kaga jawaabteen waxaan idiin sheegayaa innagu reer Soomaaliya baan nahay dalkan odayaasheenni baa sameeyey cidna uga tagi mayno cidna ugama tagayno dalkan waxaa dhisay xaaji abubakar buray nuur sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar cabdilaahi ibraahim habane walaalayaal dalkan innagaa leh kuwii qaatay wasaaradihii awoodda badnaa kuwii qaatay xeer ilaalintii booliskii maaliyaddii ayaa doonaya kuwaasoo daalimiina inay xilkaad noo doorateen inay baadil ku qaadana miyaa bannaa waxaan doonayaa reer booramaw kursiga madaxweyne ku-xigeenku wiina dilay waa markii ugu dambaysa madaxweyne ku-xigeen madaxweynaan doonaynaa dalkan cid u shaqaysuu doonayaa madaxweyne daalina oon dadka biyo cabbin oon dhakhtar u dhisin oon ciidan fiican u samaynin oon waxbarasho siinin dadka uma baahnin waxaan leenahay ninka iga dheerow iga bod ninkii iga dheerow iga bood baan leehay ninka inaga dheeri ha iga boodo ninka iga dheeri waxaan idinka doonayaa walaalayaal doorashadii baa soo dhow ninka reer boorama aan rabin ninka reer boorama xildhibaanadooda eryadaya waa xukuumadda jirta ka xodeeya rida سودكاني ما دقنا دولة جبوتي ولقيت سومالي لما جبت كويس سبعين ما أنت جبت كويس سبعين شو لكن موسى إلي ربطان كرجع أي جبوتي ديدي سنا ترتب وعلي أنه علي وعلي وين جبوتي وعلي والله ياتي بدك يجي باتين سياسة عمر موسى وراعنا سياسة عمر المصبحي هم وراعنا waxaan idinka codsanaynaa inaan noo dulqaadataan intaanu ka codaynayno 13 Noofembar intaan ka codaynayno inaan noo dulqaadataan baan rajaynaynaa ma nihin dad xildhibaanadooda leeriyo karo reer booramaw nin la saariifsado mustaqbalkiinna maanta ay noogu dambaysaa nin la saariifsado mustaqbalkiinna maanta ay noogu dambaysaa anigu moogani qof waxay mid yeela moogani mid hoos idiin eega moogani mid nacaaya moogani mid idin xumeeya walaalayaal dadka degan magaalada gabiley dadka degan magaalada hargeysa dadka degan magaalada burco dadka degan magaalada ceergaabo iyo soomaali oo dhan waa walaalaheen weeye waxaynu la dagaalamaynaa madaxda xun baan la dagaalamaynaa dadku soomaali meela joogtaba cid u shaqaysay weynay aad iyo aad baad mahadsantihiin waad shaqo tagaysaan jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato muuse ha dhaco jamhuuriyadda soomaaliya ha noolaato waad mahadsantihiin maanta waxaan doonayaa ugu dambayntii madaxweynaha Soomaaliya wax ka hooseeya jiro waxaan doonayaa wasiirada waaweyn qaybteena haddaan la keenin yeeli maydo
saaraynaa saasaan ku kala taageeraynaa wadayaal haddii aynu soo qaadano qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena maanta arrimaha dibadda waxaa ka mid ah dagaalamayaasha lagu magacaabo xuutiyiinta ee ka dhisan dalka Yemen ayaa waxa ay weerareen caasimadda dalka Tel Aviv ee Israa'iil halkaas oo ay ku weerareen diyaarad drone ah haddaba goor dhaweyda uu sarkaal ka tirsan ciidamada Israa'iil saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dhimashadu hal qof tahay dhaawacuna uu tobaneeyay yahay sarkaalkan oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa waxa uu ku daray in uu bartilmaameedku ahaa safaaradda Mareykanka ee ku taala bartanka caasimadda Tel Aviv haddaba falkan waxaa dhaleeceeyay xogayaha qaramada midoobay iyo midowga Yurub daawadayaal intaa waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta intaynu barnaamijkeena ku xigayno ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo